kusoo dhawow qaraax tiyub fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa ugu dambeyn aqbalay inuu kooxda ka fasaxo Antonio Martial, balse United way ka cagijiidaysaa in Martial ay ka iibiyaan kooxda kubadda cagta Chelsea. kooxda ka dhisan horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka ee Bayern Munchen ayaa doonaysa inay soo qaadato 22 sano jirkaan kaas oo mar kale dareensan inuusan boos joogto ah ka heli doonin kooxda kubadda cagta Manchester United. Chelsea waxa ay doonaysaa inay iska iibiso Williamna waxa rabta kooxda kubadda cagta ee Manchester United. sidaa darteeda labada kooxood waxay isugu jiraan difaaca in labada ciyaartooy ay kala cishtaan. dhanka kale Chelsea, Tottenham, Bayern Munchen ayaa dhamaantoodii raba inay helaan Antonio Martial, balse United waxay isku diyaarinaysaa ciyaaryahankan inaysan ka iibin koox ka dhisan Premier League. Bayern Munich ayaa laga yaabaa inay hesho xidigan sababtoo ah waxay doonayaan inay bixiyaan lacag ama haddii ay waayaan Leon Goretzka in xidigan ay soo qaataan. Manchester United dhankeeda waxa ay qiimeynaysaa in xidigan ugu yaraan 60 milyan ay ku fasaxaan. dhanka kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dalabka ciyaaryahan William gaarsiisay lacag dhan 65 milyan. kooxda ka dhisan horyaalka Spain ee La Liga ayaa doonaysa inay hesho xidiga lagu magacaabo William sida ay warinayso Evening Standard. Barcelona ayaa sare u qaadaysa qiimaha ciyaaryahanka reer Brazil iyadoo 64.2 milyan gaarsiinaysa garabka duule ee xidiga reer Brazil William kaas oo raba inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Real Madrid ayaa ku dhawaaqday saxiixa goolayaha lagu magacaabo Andre Lunin kaas oo ay ka soo qaateen kooxda FC Zorya 6 sanadood oo heshiis ah ayuu saxiixay ciyaaryahankan uu ku sii joogi doono kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Eden Hazard ayaa 170 milyan la gaarsiin doonaa qiimihiisa sababtoo ah Chelsea ma doonayso in lacag hoose ay ku iibiso ciyaaryahankan. Real Madrid ayaa doonaysa inay hesho xidiga lagu magacaabo Hazard. dhanka kale wargeyska lagu magacaabo Sky Sports waxa warinayaa in kooxda Barcelona ay liiska ku darsatay goolayaha lagu magacaabo Simon Mignolet sababtoo ah Barcelona waxay doonaysaa goolaha labaad oo Stergan kursiga kaadka u gala. goolaha Jesper Celsson ay u badantay inuu ka tagi doono kooxda kubadda cagta ee Blaugrana. sidaa darteeda Barcelona waxay doonaysaa inay goolayahaas qaadato. kooxda kubadda cagta AC Milan waxay doonaysaa in Chelsea ay ka dulqaado gooldhaliyaha lagu magacaabo Gonzalo Higuain ayaa hadda ku sugan Juventus. Chelsea ayaa doonaysa sababtoo ah tababare Mauricio Sarri ayaa damacsan inuu la shaqeeyo weeraryahankiisii hore ee kooxda Napoli. sidaa darteeda kooxda AC Milan oo xil ciyaareedka soo socda u baahan inay wacdar ka sameeyso tartamada Yurub kadib markii loo ogolaaday inay ka qayb gali karaan tartanka Yurub League ayaa hadda qorsheynaysa inay qaadato xidigan. lama oga in Chelsea iska dhaafi doonto xidiga la yiraahdo Gonzalo Higuain iyo in dagaal adag ay kala kulmi doonaan kooxda kubadda cagta AC Milan. waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe. mahadsanid.